ما دوبيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaameynaa niiro maalmadhow ciyaaraha Hargeysa ka socday tibinayay ayaa waxa laga hayaa xaalad kale runtii caawa waxaan halkan kula wadaagaynaa oo aan Sheekh Cabdirashiid Sheekh Ali Suufi ka codsaday inuu balina la wadaago qiso caawa nagu dhex qabsatay wiish dhexdii magaalada Ankara oo sheekhu joogo ayaa anaga iyo asxaab kale wada soconaa oo sheekhuna weyliyo ayaa guri aanu soconay wiishkii nagu xidhmay markaanu galay muddo saacad iyo waliba in ka badan ayaan wiishka ku jirnay Sheekh Cabdirashiid ayaan ka codsanayaa bal inuu inooga warramo wixii halkaas ka dhacay iyo waxa laga bartay. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد walaalkeen wuxuu iga codsaday dhacday yar oo caawa nagu dhacday oo iska khayr ahayd in aan halkan cibro iyo waana ka qaadano laana muuminka wax kasto soo mara cibro iyo waana buu ka qaadanaya alxayaa kullaha cibro iyo waana inay ku noqoto marka anagoo booqasho ku jirna oo guri soo booqanayna guriyahan magaalada Ankara kamid ah oo cusub cimaarada cusub oo la dhisayo koox waxaanu dhannayn marka 8 baan u maleynayaa 8 baan noo ahayn marka bahalkan wiishka ama asanseerka leeyahay ayaanu isugu nimid in yar baan markii hore ku galay laakiin wadaadnaga mid ay yiri yadullahi ma'a al jamaacada dhanba war soo gala leys qabsayo adigu ra'yigiisii baa qaalib noqdo dadkii oo dhan meeshii baa la isugu yimid bahalkii ilaahay qadar allah ma shaa facal albaabkiisii baa nagu xirmay dhinacna waa u dhaqaaqi waayey markii hore waxaan kaftan moodnaba markay arintii rubuc saac iyo sii dhaafayso bay alla ilaahay nin walbaba ay runtii u timid oo la dareemay in meeshii khatar ay ka jirto dabadeed waa la isweydiiyey maxaa la yeelaa waxaan niri waa meeshii ilaahay subxaanahu wa tacaala la magan gali lahaa oo la baryi lahaa horta waxaan niri bal aan xusuusanna xadiidkii saddexdii nin ee qaarku uu ku daboolmay dhagax intuu ka soo dhacay iyagoo dad ku jira dhagaxii daboolay nin walbaba inuu bal camalkiisa camal uu isleeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala liajli illaahi baad u samaysay camalka isaga wariyaa wax xusuusan karo wadaadkan sheekhan oo nala fadhiyo reer Urduna ayaa wuxuu yiri waxaan ka yaabayaa anigu haddaan wax sheego inuu nala sii dagaba marka aanu waa iska aamusna ala kulli xal waxaan niri aan ilaahay barino ilaahay baan subxaanahu wa tacaala yani xawlkiisii awoodiisa طبعا dadkii walaalaheena ee mashaayixda ahaa Sheekh Maxamed Idriis iyo ragii meesha nagu sugayay waa dadaaleen اتصالات بسميين waxa la hadlay qolooyinkii wiishkan ku shaqalaha iyo qoladii dawladda inta waa la hadlay arintii way yar dheeraatay waxaan u maleynayaa saacad iyo ka badan ayaanu meesha ku jirnay maxaa marka su'aashu waxay tahay wax ma ka faa'iideysanaa waxban ka faa'iideysanayo hadii wax yar kadib markii arinta aan ku jirnay arintiina aan aragnay inay run ay tahay oo kaftankii ka baxay nin walba dhikrigii uu carabka ku qabtay anigu ugu yaraan 2 juz ilaa 3 juz in ku dhow baan iska akhristayba quraanka ah haddana waxaan xusuusanay in ilaahay uu na faray mararka khatartu ay dhacdo in salaada xageeda loo cararo waata ilaahayna leeyahay ya ayuha alladheena aamanu istaciinu bis-sabri was-salah nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam kana idha hazabahu amrun afza'a ila as-salah meeshii 8 baan nahay oo meel lagu sujuudi karayo maba ahee marka salaad baan tukaday anigu 2 rakac tukaday ilaahayna waan baryay waxaan runtii run ahaan sheegaynaa salaadaas markii aanu dhameynay baa ilaahay farajkii bilaabay oo aanu codkii iyo shanqadii iyo sheekadiiba maqalay dadkii naga dul sareeyay shaqeynayay wariya dhamaantii alxamdulillah ilaahay waa naga badbaadiyay albaabkiina waa la noo furay waana ka soo baxnay walillahi alhamdu wal minna wa cibrada laga qaadanayo waadana waxay tahay insaanku marka uu darar ku dhaco dhibaato ku dhaco
وربي سبحانه وتعالى مكان قاله وإلهي حسوسته إلهي مركانا جل جلاله وقرقاريا مشركين تي قال أهيد بابا مركي أي بدأ أي كجرانو موجكو كوكعو أي نفتو هلكا أتماده بي ربي قد بري جرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فكيف بمسلم مركه رب لا إله إلا الله محمد رسول الله لها نعم إلهي سبحانه وتعالى قرقار كيسوا ودويها سبحانه جل جلاله هذا أرنتاس إسكير بأهيد آية بدنا القرآن كأن أخرنيني ونصوم رأيه كمتاي وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله عجيب أنا روعي أنا أخرني جزكي أنا مالي وردي يمري لبا آية لبا أرنتها خصيص عن صومرتي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هل كاسو حلولي عانانت إسكدافي وذاتكي أنا شنه وهذا واحد سبب ninka miskiinka la iska haystay laha waxaan muqaddar bay horay u ahaayeen laga haro ayda kalena ma asaba min musibatin illa bi idnillahi ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ولكن شيء iska basiid ah الحمد لله dhulkuna aad buu qabowga ma aanan ku rafaadin naftuna lagu macashoomin korontadu waa shidnayd marwaxadu ay noo shidnay insaanka ayaa khalkhal iyo ma aragtay walwalkiisu iska badan yahay oo naf jacaylka iska jirtaa ma ahayne وحوين خطرنا مشي أهين لله الحمد كان يقرأ من يجيب المضطر شيخ يوسف نحو آخرنا من يجيب المضطر نوم الباب نحو آخرنا يدي مركا خير بي هذا الحمد لله نصوم مري هذا والله ولي التوفيق صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحابته أجمعين هذه أيوم هسي شيخ عبد الرشيد شيخ السوفي المقال كان وحيدين سو قد بني يعني أحمد درويش تاني كل ضد بزاحي بيالو هذه كغتغيه أمان الله.